oo inay wadna maantana ciyaara koral markay kala dhaceen shalay ayaa taariikh lama ilaabaan dhex martay kulaman koral oo kamid ah dhanka Serie A-da waa Juventus iyo AC Milan amba AC Milan Juventus ayaa that my career will soon be over. You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself. Some people wanted to break me, but they only made me stronger. Others wanted to exploit me. They only made me smarter. And now you think I'm done? To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you, because I'm not you. I am... Scuola garoonka San Siro markii ciyaarta la sugayay ayaa shalay ballantu ahayd ayaa dhici karnaa shantii ciyaar oo ugu dambeysay ee wada ciyaareen labada koox Milan ayaa ku awdsaraysay kulankii la soo dhaafay garoonka Juventus lagu qabay hal iyo hal ayuu noqday kii ka horeeyay 3 Milan ku badisay kii sii horeeyay Juve 3 ku badisay kii sii horeeyay Milan ayaa ku badisay 4-2 kii sii horeeyay Bareja ayaa la galay ee balmaanta xoon noqon doona ayaa taganay kulanka lagu qabay doona San Siro wuxuu ku dhamaa doona Ibrahimovic iyo Dybala ayaa sanadkan wada ciyaaray 14 iyo 16 دقائق عيارين وحواس 880 iyo 1143 ay kala ciyaareen goolasha waxay kala leeyihiin 8 iyo 7 taqriibka waxa dhigi karnaa 7.47 iyo 7.18 waaye aw waxa ku sareeyo Dybala Milan iyo Juve wata wada balansan waa caawa markay tahay 5 saac oo dhiman amba saaxida 10 markay tahay oo robe dhiman ayaa caawa loo sugaya ciyaarta balse ciyaar caadi maahan Ibrahim Diaz iyo Dybala ayaa soo kana 18 iyo waxa kala ciyaaray 16 waxay kala dhaliyeen goolasha hadii la dhaho 7 iyo 3 Dybala ayaa gool badan dhanka fursadaha oo goolasha sameeyaha 3 waxa sameeyay Ibrahim Diaz 3 waxa sameeyay Dybala معادلة تسديدات أمبا شود وانا كانوا حادي كرنا 4.1 iyo 1.3 أي كلين وان كرنا اللياو iyo كورديردو iyo قوان كوادرادو أي عليه كرنا رفيع اللياو ساقلو سعنا وسنة كان وانين كيوروب أغواتو أو 4 iyo 10 بنوني الصحة سميي أو انت لاعب كأفكا أقل شعار هذا أيو بنوني الصحة ديجاي وحو سميي 4 iyo 10 باسو معان إيه أو بعادي هنا عليه كرنا ومراتيا أرفارو إيو إبراهيموفيتش واو والله كلنا عادي هنا عاوض سوينا بلا عاوض سوينا تشكيلة اي سي ميلان كو عياري سواتنا واسدة وافر لابا سدحل وحاول هلايو بورتيريك وحاول هايو منيان دانك دفاعا وحاول هلايو كالولو إيو رومانيولي هرنانديز إيو كالابريا لابنا أيو كلا جوان كورنيتش إيو تونيل نقطة عياريان رافائيل لياو iyo Ibrahim Diaz iyo Messias iyo Ibrahimovic afka hore ay isla dheelayaan waa 4-2-3 waa Mr Pioli tabarooda dhanka Juve watana waa 4-2-3 sidoo kale inta ciyaaraysa waa Bortieriga Sisnar iyo Chiellini iyo Rugani iyo Di Chilio iyo Alexander qaadka dhax waxa uu ciyaaray Locatelli iyo Banticor iyo Cordardo iyo Dybala iyo Macchini iyo Alvaro Morata waxaan ka doonaa ayaa ku awsare doonaya Mr Allegri Mr Pioli ayaa caawal dhaha balse waxay ku laatay eber ayaa ciyaaraha kale into Talyaani ka dhacana sadatan ay wada dhamaadeen 2-1 waxa ku badisay Verona Genoa ayaa Bareja gashay Udinese Bareja la gashay Inter iyo Venezia waxay ku dhamaatay 2-1 markay Inter 9 iyo 3 markay ahayd xidigeeda Zico goosho u keenay Lazio iyo Atalanta iyadoo ay ku heshiiyeen eber Cagliari iyo Fiorentina 1-1 Napoli Salernitana ay wadkaatay 4-1 Spezia iyo Sampdoria hal iyo soo laatay Torino iyo Sassuolo Bareja ay ku heshiiyeen Empoli iyo Roma ayaa ku adkaatay 4 Milan iyo Juventus watani Shana iyo Bareja ay ku heshiiyeen Eberbo Gibihan waxa hogaaminaya Realka Inter ayaa hogaaminaysa waxay ku hogaaminaysaa 53 dhibac Napoli iyo Milan ayaa ku soo xigo min 49 leh 43 42 Juve ayaa dhig kala Juve way soo socotaa ayaa si weyn
dhanka Premier League United ayaa ku badisay iyadoo dhima rabtay nafta kasii socotay aqar daqiiqa markay gool la yimideen xadigeeda Rashford uu dhashay 93 markay mareysay ayay gibi ahaan u adkaatay West Ham hal iyo eber waa Premier League. Newcastle ayaa ide ku badisay hal iyo eber markuu xadigeeda u dhashay Chelsea hal iyo eber markay ka bashan kooxda Ladies. Wolverhampton ayaa ka bashay Brentford 2-1. Southampton iyo City waxay ku shiiyeen inay baraja galaan waxa uu kala shay Peters iyo waxa uu kala shay Laporte hal iyo hal ayay kusoo gabagabowday oo master xiiran akhiiran waa la joojiyo baraja lagu celshay karaa. Southampton ayaa baraja ku celisay ay dhikarnaa xidiga Kevin De Bruyne sanadkan waa xoo noqday taariikhda Premier League ninka ugu gool dhigaha wanaagsan oo ugu baas fiican oo kasoo galay kanta 10aad waxaa hogaamiyayo Ryan Giggs oo 162 leh Cesc Fabregas 111 gool oo la dhali kara ayuu xaqiijiyay Wayne Rooney 103 u ahay Frank Lampardne wuxuu marayay 102 Dennis Bergkamp 94 Steven Gerrard 92 David Silva 90 James Milner wuxuu leeyahay 86 David Beckham 80 De Bruyne 80 ayuu yimid oo Beckham ayuu soo barajay karaa ciyaarta labada sugay waa Chelsea iyo Tottenham kulanka kulul oo Premier League la wada qabanayay ayaa dhigi karaa waa ciyaar kulul waa Lukaku iyo Harry Kane shan iyo ciyaar ay wada ciyaaraan 18 ciyaar kala dheeleen waxay kala saxiixeen goolasha 5 iyo 5 ayaa dhigi karaa Lukaku sanadkan sidii hore inkastoo ahayn waa iska ciimaya Mount iyo Son ayaa ay kana kuwan waxay wada ciyaareen sanadkan xagaygan waxay wada ciyaareen 7 iyo 8 oo Son 8 ciyaaray kana wuxuu ciyaaray 7 waxay kala xaqiijiyeen goolalne ayaa dhigi karaa gool waxay dhigeen oo gool wanaag 3 iyo 5 waxay dhalsheen meeqo daqiiqo ay dhaleen waa isku mid kuleybo goolashan waxay dhalsheen 1 iyo 2 ay dhigi karnaa waa Chelsea soo dhaleysay Tottenham waa labada tashkiilaba labada koox ay kala ciyaarayeen ayaa dhigi karnaa waa kuwana Mr Chelsea iyo Mr Tottenham labada kooxba Chelsea iyo Tottenham ayaa ciyaar kulul ah oo looda sugayo gibi ahaanbo shantii ciyaar oo ugu dambeysay waxaa dhigi karaa waa looga awood sareeyay Tottenham waayo meeshan uguma jeedo guul ay keeneen kulankii ugu dambeeyay oo lagu qabtay garoonka Tottenham Chelsea ay ku guuleysatay hal iyo eberkii ka horeeyay 2 eber waa labadaba Carling Cup-ka ayaa dhigi karaa horyaalka 3 eber waxaa ku bashay ciyaartii garoonka Tottenham lagu qabanayay Chelsea haddana baraja galeen 2-2 marna Chelsea ayaa badisay kollaba Chelsea iska dhebo caawadana waa Chelsea santa say irtaanay Chelsea ayaa ciidamadu u tuuri karnaa dhigi karnaa kolley Tottenham ayaa uma hayo Guardiola ayaa naqday ninkii ugu horeeyay Premier League oo 500 oo dhibac gaaro khilaal 6 sano kaliya bas 500 oo dhibac walle adooga caadi ma waa shaqaysto Mr Xiran waa shaqaysto oo dhigraa 6 sano ayuu tababar u yahay kooxda City 6 sano ayuu ku gaaray 500 oo dhibac walle inta kuma taalabo 6 sano 500 dhibac walle Guardiola dhigraa caadi ma ahan ayay gibi ahaan ciyaartii Chelsea iyo Tottenham ba kusoo gabagabooday 2 eber waxay ahaatay ciyaartii waa Chelsea oo waxa dhigi karnaa Tottenham ayaa la garaacay Chelsea la hada agteeda aad u alno waa 6 kulan oo isku daba xigtay Tottenham badi weysantaay ayaa dhigi karnaa derby London waxa ka wad bashay Chelsea Liverpool oo inkastoo odaal ka maqan yihiin ayaa idna soo garguurinayso waxay garaacday Crystal Palace waxay ku badisay 3-1 waxa kala shay Van Dijk iyo Chamberlain iyo Henrique goor u dhashay cunuga oo qad dhawdheelo oo heer Brazilian Arsenal iyo Burnley ayaa la gashay barajo 0-0 ayaa dhigi karnaa tababarahanba fikirka oo Mr Conte ayaa saamaxiisa qaac u baxay soo Chelsea ugu badin lahay dhanka La Liga waxa ciyaaray dhanka Ingiriiska ayaa dhameystiro Watford iyo Norwich City Watford ayaa laga adkaaday Everton iyo Aston Villa ayaa badisay Brentford iyo Wolverhampton badisay Leeds iyo Newcastle ayaa badisay United waatay ku badisay halkii gool oo wacalkahay oo yatiimkiiska ahay waxay adkaatay West Ham Southampton iyo City waxay galeen barejo Arsenal eber ay barejo laga Burnley Liverpool waxay ku badisay 3-1 Crystal Palace ka badisay Leicester iyo Brighton hal ay galeen Chelsea waxay ku badisay 2 eber Gibiyahanba waxaa la sheegay inuu Paul Pogba dhanka iyo cimrada u baxay oo dhahay kooxdantiida oo wareersan soo ilaahay iga baxsho ayaa cimrada soo cimraysana ma sha Allah lana rabbi taqabbal minnak ya Mr Paul Pogba waajibka cimrada waa wax wanaagsan ayuu soo magtoohaya
dhanka liga aada dhanka oo la liga ayaa asna Atletico Madrid ay ku badisay 2-3 markay ku garaacday kooxda Valencia ciyaar kulul oo macaan ka dhacday markay ciyaarta mareysay 2-1 ayaa Mr Simeone oo dhaysa macquul maahan ma qasaare la kulmi raba adiyo remontada caadi ahayn ku keenay Angel Correa ayaa dhashay gooshi 1-9 markay mareysay waxa uu dhameystiray Mario Hermoso ayaa u dhashay goosha 2-9 markay mareysay ay gibi ham kusoo dhaatay ciyaarta 3-2 ayaa dhigi karnaa La Liga waxaa hogaaminaya hadda kulley waxa waaye Real Madrid laakiinse Real Madrid iyaduna way ciyaartay oo ciyaarteydii waxay la gashay bareejo kooxda Elche markoo rigooradii ugu horeysay oo dhunshay Karim Benzema 13 Real Madrid ayaa hogaaminaysa season kan waaga konton dhibacyo ku hogaaminaysa Sevilla 46 Real Betis 40 Atletico 36 Barcelona 35 ayaa dhigi karnaa laakiin Barca ciyaar baa u dhiman ay waaga ciyaareen Real Betis ciyaar baa u dhiman waa wada sugnaaba waxay naqadan natiijooyin kale inta ayaa dhanka Betis waxa hogaaminayo Karim Benzema oo 17 gool ku hogaaminayo goolasha Vinicius Junior ku xigo 12 leh gibi ahaan intaasna waqtay Premier League iyo Serie A ila Liga intaas ayaa kasoo tibina inta kasoo tabi karnaba idinka dhankiina ayaa la ilaawin subscribe-ka iyo like-ga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa heer fantastic